markastoo bini aadamku xag ilaahay u noqdaana ilaahay xaaladooda isaga marka bini aadamka bedelaya muslim ayuha almuslim a'mal ahkam waxa ilaahay nabigeena inoogu soo dhiibay hadday muslimiintu gartaan nidaamka caalamka oo dhan bedelaysa roob haddii la waayo gaalada maanta la leeyahay teknoloji bay gaadheen horumar bay gaadheen aalad ma hayaan ay roobka ku keeni karaan walaakiin nabi maxamed innaka wuxuu ina baray salaadii ducadii roobka lagu keeniyo nabigu na baray nabi reer bani israa'iil dagaal buu galay dagaal jihaad dagaalkii oo socda oo gaal iyo islaam la isku leynayo salaadii casar baa gaadhay markaasay nabiga uu sheegay yiraahdeen yaa nabiy allah salaadii casar baa taagan salaadii baa taagan nabigii waxa la yiri fartiisu ku fiiqay cadda salaa ugu fiiq waa nabi ilaahay doorto rasuul markaas adigu amar baad ku socotaa annaguna amar baan ku soconnaa kaana markiisa ku wada soconno ayaan weydiisanay inuu ku joojiye halka noo joog buri la aan gaalada kala baxayno halka ha ka dhaqaaqin xadiisku waa saxiix dagaalkii bay wadeen gaaladii bay jabiyeen way ka guulaysteen qaniimadii xoolihii bay la soo hadheen kolkay guushii ay gacanta ku dhigeen wax walba ay guulaysteen ayuu nabigii ku yidhi hadda inoo eega weli halkii bay joogtaa soo ma joogtaha salaada imika tukanaynaa markay salaadii tukadeen buu yidhi haddaba imika iska soco iska dhac buu ka yidhi horumarka caalamku ma gaadha imika caalamka horumaray maxaa horumaray birahan qayliyaa horumaray birahan wax duubayaa horumaray bani aadamku ma horumarin maanta hoos baan u dhacnay innaku maanta kaligii meel joogaa maqlay fadka dhexdeedoo laga leeyahay beerta hebel u geeya daruurta beerta hebel roobka u geeyo daruurta u geey u wiciya daruurtii buu eegay meel bay ku daaday barkad biyay ku dhacday beertii buu yimid nin wuxuu arkay dhex taagan oo biyihiisii beerta mangadka ugu wicinayo markaasuu magacii buu u sheegay magacii uu ka maqlay fadka dhexdeeda daruurta dhexdeeda iyo magaciisii baa isku tagay buu rasuulku yidhi markaasuu gari maxaad iga weydiisay magacayga wuxuu yidhi wallaahi wax kale kuma weydiine waxaan maqlay magacaaga oo fadka dhexdeeda laga sheegaye beertaadan maxaad ku samaysaa ii sheeg daruurtii waa ka ilaahay adiga uu kuu keenay wuxuu yidhi haddaad i weydiisay beerteedu markay ii soo go'do ayaa saddex u qaybiya midhaheega qayb beerta ayaa ku celiyaa qaybna aniga ubadkayga ayaa cunno isticmaalna qaybna waa sadaqadaystaa buu yidhi xadiistaas waa wada saxiix waa bani israa'iil ayuu nebigu nooga sheegaya qisas saxiixa maxuu kugu sheegaya nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa lagugu baraarujinayaa haddaad camalkaaga hagaajisid haddaad adig iyo ilaahay xiriirka inii dhexeeya haddaad hagaajisid noloshaada adduunyadan iyo taakhiro waxba kaa xumaan maayaan علم القرآن الكريم في بيتك بشارو 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 بشري هذه برشة القرآن كله جلي شري سفر هذا واحد كبر نساء القرآن كي علومة الإسلام كأديكو أوتشوده هوي جاجا أما قوت هذا شباب dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka iyo culumta islaamka duruusta sida taxanaha u bixinayo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka iyo higaada culumta shareecada tarbiyada ubadka iyo luqadda carabiga qiraa'aadka qur-aanka kariimka iyo barashada salaada isqoristu waa ay socotaa ee wixii faahfaahinaya intaasi dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanada ku muuqanaya